saddexdii sano ugu dambeeyay ee aad shaqaynayseen horta marka hore waa ku mahadsantihiin waa idin soo dhaweynaynaa su-aasheeda khaaska waxay tahay saddexdii sano ugu dambeeyay assessment organisation ahaan adinka iyo dastuur ahaan cid idinku samaysa ma jiraa si loo ogaado what kind of behavior and what kind of andos warbixintiina hadda markaan dhageystay guddoomiye cali waa nin runtii dadka soomaalida ah meel kastoo ay joogaan aada u caawiya oo respect weyn aan u haya cali iyo asxaabtiisa laakiin haddana waxaan indhaha laga qarsan karin in shaqada efsan maanta ay soomaalidu ka sugayso iyo waxqabadkan kooban oo 1 iyo 2 iyo 3 markii la fiiriyo ah inay aada u kala duwan tahay marka su-aasha 1 waa ururada baxay inaad noo faahfaahisaan sababahay ku baxeen iyo aragti tan hadda su-aal ma noqon karto markii guddigiinu hadda shaqadiinii 3 sano waa idiin dhamaatay haddii aad matalan waxqabad muuqdo la dhihi karo 1 iyo 2 iyo 3 haddaan noo tilmaami kartaan waa mahadsantihiin efsan ma leeyihiin qorsho ay ugu talagaleen qorsho sanadeed hadda waxaa naloo soo gudbiyey isbiin waxqabadka maxaa la dhihi jiray efsan waxaa la soo gudbiyey waxqabadkeeda laakiin anaga kama warhayn diilka aad ugu talagasheen waxaad noo soo gudbiseen kaliya waxaad qabateen guusha aad gaarteen laakiin ma leedihiin qorsho sanadeed oo ugu talagasheen qorshaha sanadkan 2020 waxaan ugu talagalnay barnaamijkaas intaas markaasaan ogaan karnaa inaad gaarteen iyo in kale marka qorshooyinkaas ma idin degsan yihiin haddii ay idin degsan yihiin maxaa idin hirgalay taa waa mid su-aal idin weydiinaya tan labaad walaalkeetu uu sheegayo waan xoogaa daba dhiganaa waa run anaga xaqiiqatan waxaan nahay shaqaalihii u shaqaynayay efsan u shaqaynaynahay idinkana madaxdana tihiin aadaan ugu faraxsanahay hawshaad qabataan waan ku kalsoonahay laakiin waxaad moodaa weli inaan gaabsi aan ka dareemayno anaga haddii idinka wax noo dirtaa anaga wax qabanayna shaqaalaha markii wax loo diro ayaga shaqaynayaan haddii la dhaho maanta miiskaa nadiifi waxaa ku qasbanayaan miiska aan nadiifiyo laakiin haddii adiga shaqa aada ii dirin maxaan qabanaa tusaale ahaan gudniinkoo kale waa naloo diraa waxaan jecelahay walaasheeda zahra aadan oo shaqaynaa sidii loo taliyaan u qabanaa laakiin ilaa hadda ma arkin wax dhaafsan gudniinka marka ma idinka gudniinka keliya ma ku kooban tihiin maxaa yeelay idinkaa la idinka rabaa in hawl abuur wax abuur aatiin maamulkiyaa noo tihiin idinka idinka sugayna inaad gaarsiisaan ku fiicantiin waxaa ka mid ah ummadda inaad isku wadaan intaanoo qofood maanta inay isu timaado idinkaa iska lahaa dadkii waa isku wadaan inta la isku wadi karo waa isku wataan qofkii maamulka ka soo shaqeeya garanaya wax sahlan maaha ummadda soomaalis khameenis qaab oo netherland degan afkoodii u hadlaaya idinkaa haddii qof dhibaato ku timaado asaga ka weyn oo kale arrimo waxaa ka dhaca marmarka qaar waddanka khatar oo annaga dhanna saameeya gabar waxaa la sheegaya hadda meediyaha si xun ugu jirtay oo waalidkeed la dilay qaabka lagu dilan aan la garanayn su-aalo badan ay ka taagan yihiin waxaan idinka filan iibsan haddii aan la koran yahay inaad ka hadashaan oo shir qabataan oo meediyaha tagtaan oo aad samaysaan qalabka warbaahinta aad la xiriirtaan idaacadaha meel kasta aad la xiriirtaan oo la yidhaahdo ninkan oo ah soomaaliya secretary oo ah guddoomiyihii ku ah ayaa arrintaas ka cabanaya meediyaha kalena waa kasii qaadan lahaayeen waa laga hadli lahaa wax laga qaban lahaa taas horta nimayo waa ka gaabiseen سعيد waxaa ka dhalaantay inaad projectan efsan qabato laakiin waxa dil isku soo laabto FGM baa lagu soo laabanaya marka amiirison wuxuu dhahay xoogaa leedanka ama dadka ururada xoogaa jiifaan isku dayday marka ururada jiifo inaad wax u qabataan la isku kaashto su-aashu weydiiyey wuxuu yidhi assistant bani ku sameeyey mise baaritaan mise evaluation ma la sameeyey 3 sano qabsatay dabcan mar kastaba dastuurku jooga evaluation isku sameeyaa maxaa la qaban doonaa maxaa loo baahan yahay leedan farxadarinka laakiin maadaama corona dhacday sanadii hore alkhamiis leedan farxadarinka qaban jiray workshop la qaban jiray laga hadli jiray waxyaalaha la sameeyay ururada ka iman jiraan buhufta been la sameeyay jiray laakiin waxa ugu dambeysay dhacday in oo yar oo jaamacadda xasuusta baqlada uu sameeyay jaamacadda oo ka dhiganay Amsterdam dhiganay jaamacadda Amsterdam dhiganay ayuu wuxuu ku sameeyay undersug sameeyay afstur opter sameeyay oo organisaasi firbetrinkiisa waxyaalaha iswaka waxyaalaha weeliska ah raboor ka qoray marka raboorkaas ayaa la siisay kugu soo diri karaa hatta la gelin karo website-kiisa afsdur opter hadii asaga tustamanasi kaasa jiray sameeyay okay laakiin eelka project la sameeyay la qabanayo evaluation lagu sameeyaa la qiimeeyaa laakiin badanaa way fiican tahay in leedanka qiimeeyaan dastuurka asaga isqaybin waxa way kani frisnid kuura moogtay anaga daa isqaybin waxa leeyahay waa fiicanahay laakiin dadnida faraaqdanka weydiiyay oo ah in organization-ka
يعني shaqada uu qabto ka gudi ahaan iyo shaqada uu qabto wax qiimeyn ah ma lagu sameeyay dad ka baxsan oo extern ah sidaad la wada socotaan wadankan ka soo qaad khamiintiga hay'adaha institutionska kale oo service-ka sameeyo dadka u shaqeeyo kale waa aragteen mararka qaarkood waxay soo diraan su'aalo anketa oo dadka u soo dirayaan meelaad tagtay waa laga caawiyay format buuxisay telefoon dirtay isla markiiba waxa lagu soo dirayaa email oo lagu leeyahay sidii lagu caawiyay bal ka waran marka waa muraayad ay isku qiimeynayaan marka arintaas waa arin fiican in ifsan gudahan shaqada ay qabato yani gudiga howlwadeennada wax ifsan oo dhan oo isku duuban yani maaragtay in mararka qaarkood qiimeynsaas ay jiri karto aaday u fiican tahay sababtoo ah yani waa verbatim mar walba yani wixii aad haysato waa haysataa wixii aad isleedahay hagaajin u baahan yihiin in la sii hagaajiyo haddii wax qaldan yihiinna macnaa in la saxo marka waa absolutely waa waxyaabaha soo kalena waxa fiican external bartaay oo kale sida Axmed hadda uu sheegay oo kale bani ministerka in ardada jaamacadaha dhigato kale ay mararka qaarkood xataa anaga naga mid ah in object u qaadan karaan oo kale mararka qaarkood xataa waxa lagu leeyahay waxaad soo sameeysiin afstudir object oo kale marka in waa laga yaabaa Zahra in maaragtay in marar badan soo mareen yani dad oo maaragtay dhalinyaro ah oo waxbarashada dhameynaayo oo maaragtay ii sheeg laga caawiyay inay sameeyaan afstudir object oo kale tanoo kale qaybay ka noqon kartaa marka dhalinyarada iskoolada dhigata jaamacadaha gaarsiyo kale waa on the web fiican xafiiska la soo xiriirayaan Zahra la hadlayaan iskoolkooda ka soo dhaadhicinayaan waa wax fiican oo kale sida hadda Axmed uu sheegay marka waa arin fiican arintaas absolutely aadan u soo dhaweynayna waa maadsantiin umaleena tan koowaad in xogaa aan wax ka jawaabi karo ururada iftan ka baxay hal urur waa jira aan la xiriiray oo aan weydiiyay sababta oo marka ii sheegay laba arimood ay macnaha say iyaga u arkeen marka mid wuxuu dhahay oo ahayd macnaha efsan iyo waxay anaga noo wacdaa ama ay macnaha ay nala soo xiriiraan marka iyaga wax u baahan yihiin ama ay meeting qabanayaan ama baahi iyaga ay hayso macnaha efsan oo wuxuu ka wadaa markaas ururkii midda kalena waxay ahayd in bastuurkii dad koox iswadato iyagu inay meeshii iska haystaan oo iyagu joogaan labaas arin macnaha inaysan transparent ahayn meel furan oo tuqaan kalik oo la soo geli karo laga qayb gal karo inaysan ahayn labaas arimood oo macnaha uu ii sheegay marka midda koowaad koleyba anaga ahaan saan u aragno waa saa sheegaysid because bastuurka waa faraabiliq waxaan qabanaynaa qaban karnaa ururadii iyaga lafkooda howlahoodii wataan laakiin markii wax guud la qabanayo oo magaca efsan lagu qabanayo de markasta waxay noqonaya ururadii oo dhan in lala xiriiro ma jiro urur khaas oo la leeyahay iyaga markaa loo baahan yahay haloo waco marka ma jirin ka anaga u aragnay marka waxaan u aragnay inay iska maanay tahay arin dareen macnaha ururkaas ku jiray inay saa u arkaan oo macnaha ay adagtaa marka in dareenkaadi qofkii laga bedelo tan kaloo ku saabsan dastuurka iyaga unbaa mataqaanaa markasta soo joogo afartii cali iyo guure iyo maxamed saciid iyo iyaga unbaa markasta na hortaagan marka dadka maxay moogta muddo waa ku dahdeen meesha taas laftirkeedana iyo inay tuqaan kaliga ahayn meesha aan la soo geli karin taas laftirkeedana koleyba waan ugu jawaabay oo aan u sheegay macnaha markasto sidii uu dhigayo macnaha dastuurka 3 sanaba doorasho in la qabanayo oo annaga aan isdooran karin oo doorasho la qabanayo oo la qabtay oo xitaa warbixinadii wixii dhan ay jiraan marka dhibaatooyin way jiraan ururadii muddo ka hor in ay ururadii macnaha kariis jiray oo ururadii kala jabeen oo dhibaatooyin la soo maray oo laga kabsanayay markii dambana go'aan la qaatay ah ururada doorasho markay jirto dadka cod kale stem raktiga inay noqdaan dadka lacagta dhiibo milkiilaha efsan inay noqdo dadka leydanka bitaalda leydanka taasna koleyba caqabada ay meeshii macnaha wax ku noqon kara moogta in ururay yar un ay go'aan ka qaadan karaan marka doorashadii ugu dambeysay markaan 2018 way furnayd xitaa way jireen dhalinyaro ka soo qayb galay oo markii dambe ka baxay
marka taas lafteeda waxaan u tusay tusaale ahaan in macnaha ururka furan la soo geli karo aysan cidna u xirnayn taasna danaha ay noqotay macnaha si iyagu u arkeen labadaas arrin ay jirtay wax saxan idinka dadkii nasiixi lahaa alkhamiina leedan farxad imaanay meesha dacwadin ka keensada hadii bastuurku wax qalda hala qabt haddaan waxaan qaldan aan qaban wax cadeen ah noosha ka bixi kartid codsi labaad waxaan ka darsaday maamulkaada dadka soo qoray emailka maamulka bastuurkii balay ugu sameey oo furtaaqo aan ku sameeyay aan la hadlaa dhahay labadii joob liga basiin waxa la yiri waxaan codsanaynaa in codsigeena la aqbalo marka waxaan u arkay in personal farhal Soomaalida marka aan ku arkay marka waa iska taqaan hada Xasan Sheekh qabsanay groupka Xasan Sheekh groupkii dawladda saasa loo liica Soomaalida aniga daanahay marka filimkaas waa saas u maleynaa dadkan maxamed saciid sidoo balbaati uu ku sheegay laakiin personal waxa jira wax cadeen ah ay sheegeen oo naga dalbadeen oo dheer waxaas ay BC khaldan ma jirto laba codsi aan dalna waxaan ku yiri waxaan u soo galnay bastuurka Efsan inaan wax bedelno wax saxna wixii khaldan noo soo sheegay aan wada fariisan maamulkiina aan la kulanno bastuurkiina aan la kulan aan fariisan ma imaan tan labaad kale su'aashka labaad oo sheegtay oo dhahday maxay Efsan wax u qaweysay marka Efsan in la fahmo way Efsan ay tahay Efsan ma bastuurka shan qof joogta mise leedankeeda way haddii leedanka active ahayn Efsan active ma noqonayso Efsan waxa way qonta lixda urur oo magaalooyinka degan shaqada qabanaysay midalaysa ururadaas oo memberka ka ah laciif ah marka Efsan laciif ay noqonaysaa kaliya haddii la fiirsho maamulka Efsan iyo projectada wadda kaliya haddii la fiirsho ma ah Efsan waxay masashaa inta urur meesha joogto waa in ururadaasi la kobciyaa projectada la sameeyaa waxooda la sameeyaa laakiin ayaga diyaar ma u yihiin waa website la sameeyay urur kasta inuu wixii soo qoranayo wixii sameeyay website soo geliyo soo gudbiyo ma sameeyeen marka ururadii memberka ka ahaa week ah ayagoo la kobcin aqoontooda wax loo kor loo qaadin la sameeynin Efsan kor uma kacis marka ka sugin input output wixii la geliyo soo baxaysa hadii dadkii oo leedankii ay week yihiin inuu bastuurka oo cirka aad ay gacmita ay ma leenaysa leedankii ka imaanay bastuurka imaanay waa isla ayagii leeyahay shaqada sayla tahay ahaanteeda mugtay marka leedanka khuntankii labada urur mis khuntan lixda urur la sheegay مثلا إفسن وحي قبتان هذا يجي قبتان سميان أنت اسمه مركو وحي كلا أو أيق ده كان ما دام كل حجران علي محمد سعيد يو جروب كل حجران وإرفان لهاين الزهري لشقينا يكرتوا ذا أبوده ذي سميس لكن عادي أهان بستور كانوا وين الليذن الخميل اللي فرحان قبتان ورد وحي قبتان سميان وين كوست جاتا إفسن أيق الليذن كبحسه لكن dadkan guddiga ayaga shaqada anigu saan aaminsanahay shaqada waxa iska leh guddiga ma taasa khaldan marka mis communication jiraan ku leeyahay komisiga waa faraybil baas ninka shaqadu haysta waa faraybil baas oo sanad 3 bilood hal mar kulmo waay marka hadii laga sugayo dad full time u shaqeynaya Efsan oo mis cirka soo dumin kara oo kala dad waxa waay waa moogtay leedanka way mar shaqada qabanayaan urur kasta magaaladu joogo waa inuu wax ka qabtaa sameeyaa leedankaasi mise khasaamal ay ontobik ku sameeyaan teeda kale problemka jiro oo last oo 5 sano 6 sano ah waxa 10 sano ah saa la socon waxa la joojo wax la dul khurub bileed wax la dhahay aramihi wasaaradii la keenay jiri oo la keenay jiri khimiintoyin kala hoos keen Efsan khimiinto wax kama dalban karto local organisation laga rabaa markii inuu khimiintooyinka dhaxgalo lokaalada dhaxgal sameeyay oo meesha ugu baahan yahay wixii qabto laakiin arinta Efsan maxay qabataa marar badan waxaad maqlaysaa projectiga fiiqay horta sideedaba wax kasto Efsan qabanayso waxna waa problem jira oo loo baahan yahay in la xalliyo arintaasna waxa loo baahan yahay midalankii lagu xalli lahaa marka fiiri Efsan lama siiyo mana aragto wax la yiraahdo structural subsidy lacag joogto ah oo waxay ku qaban karta ma jirto muddana waa la bedelay policygaas dadka qaar kood way ka warqabaan waa opasis project marka fiiqay waa project muddo dheer socdo dabcan oo structure macnaha ma aragtay oo socdo inkastoo asaga laftigiisu uu leeyahay project waqti uu bilowdo iyo waqti uu dhamaado laakiin wali waxa jirta anima ah problemkaas inuu jiro
dowladdan ay ka warqabto balaayadaa ka jiro hadda waa lasii ballaariyey waa muuqanaya oo muddoo socdaa laakiin waxa fiican in aan fiirino waxyaabaha kale oo annagu aan qabsanoo kale haddii hadda sanadii u dambeeyey aan fiirinoo kale fiiri annagu waxyaabaha aan qabsanay waxaa ka mid ah waa ku celiyay abaaraa dhacday lacag fara badanaa u dirna xaggee ka timid dadka soomaalida u kaadi cusmaan waqti fiiri fiiri initiatiifka mashruuc waxaan ku dhahay fiiri mashruuc fiiri waxqabadka haddii loo yaqaan mashruuc oo jira mashruuc jira iyo waxqabadka haddii loo yaqaan ifsan wax ay qabato abaaraa dhacay fiiri lacag fara badanaa la soo aruuriyey waa problema qaybaa laga qaata xaggee ka timid lacagtaas sow iyada lafteedu sow mashruuc ma aha dadka soomaaliyeed ay go-aansadeen inay walaalahood ku caawiyaan oo iiqan initiatiifa sooma daadadaa dhacay dabaylaa dhacay dabkii haddaa u dambeeyey fiiri waxyaabaha ay marmar dowladda holan bixiso waxaa ka badan waxa annagu aan qabsan karno by mutasalaf trots of sign waxa annagu aan qabsan karno ma aha keliya inaan dowladda wax ka raadino netherland markaad wax ka raadinaysid waxa waa inuu ballayd jiraa waa inay midhalan jiraan taasaa muhiim ah haddana waxaa lasii fiirinaa infrastructureka waxyaabo badan oo berigii hore ka jiray danxaaq ama ministeriyaala level waa laga soo qaaday waxaa la geeyey oblokaale mifow taagagii uu qaban jira danxaaq ayaa la soo qaaday waxaa la keenay khamiintiyada waa la wada socotaa khamiintiga markii la keeno dadka loo sii dhoweeyey problemkaas ifsan waa landelig idinka oo khamiintiyadii ka jiraa la rabaa inaad khamiintigiina contacti la samaysaan maadaama middalankii meeshaas la geeyo oo aad tiraahiin mujtamaceenna lookalka oo magaaladan degan problemkaanaa jiro waxaan rabanaa inaan wax ka qabanno waxaa imaanaya marka haddii ururku markaas uu u baahan yahay understoning oo asagu markaas capacity ah waxaa laga yaabaa in lagu dhaho problemkaada soo qor seed u fulinaysaa ifsan u imaaw diyaaray u tahay problemkaanaad haysta dadkeenna oo local ah waxaan rabnaa inaan wax ka qabanno ifsan waxaan uga baahnay understoning fiiri ifsan aan faraaq ma u samayn karta khamiintiga amsterdam aan faraaq ma u samayn karta amstalfiin aan faraaqna ma u samayn karta dalxaaq xoogaa in horta wax isboolana ma u samayn karto naymeeqana ma u samayn karto everywhere oo lokaala ma u samayn karto waa urur idinkaa laydinka rabaa inaad khamiintigiina la xiriirtaan problemkiina u geysaan wixii understonina marka annagaana weydiisataan diyaaraan u nahay marar badanna waa sheegnay inaan diyaaruna arrintaa inay ifsan idinka caawiso urur aan ka caawinay oo magaaladooda oo actiifa waa kanaa waxaa ka mid a naymeeqan way nala soo xiriireen sugbinta ukaada way nala soo xiriireen waxay dhaheen waxaan u baahannahay magaalo shaqo badan aan qabanaa waxaan u baahannahay understoning fiira anoo hoof drop degan waqtigayga waxaan tegay naymeeqan waxaan ballanay dastuurka waxaan la fadhiisanay khamiintiga kaala organisaasi lidka ah ifsan siir actiif ah aan ku qanacsanaa waxay qabtaan waxay u baahan yihiin understoning waa in la caawiyaa waa joogaan maanta war cidda annaga nala soo xiriirto local organisationa oo dhaxday problemkaala magaaladeenna ka jira waxaan u baahannahay in nala caawiyo bal gacanta kor ha u taagtay ifsan tiri kuma caawinayso fiiri in la isi saxa waa fiicanta laakiin hal mid inaan fahnaa jecel anigu kolley shaksiyan in fiiri karatiigu waa fiican yahay waa inuu constructive noqdaa laakiin mid waxaa jiro ismaag loo soo iska yacni iska macno aan ku fadhin moogtahay marka kaas lama aqbali karo moogta macnaha mararka qaarkood waa mararka nala leeyahay yacni xoogaa haddii wax laydi weydiiye moogta marka annagu iyo fiican ifsan ilaa annagu hadda wax laga yaaba inaan tagno dadka ifsan mar walba waxay diyaar u tahay local organisation problem arkay raba dadkiisa inuu wax u qabto diyaaray u tahay inay understoning u samayso kharaaq taas waa middaas midda kale fiiqifay markiiba waa run waaye laakiin waxyaabo kaloo badana waxaa ka mid ah arrinta hadda aan sheegayno oo waxyaabaha waddankii laga qabto waxaa ka mid ahay brain gainkaas waxaa ka mid ahay axmed arrinta hadda uu sheegay oo projecta la yidhaahdo fib federal integrated participation oo loogu talagalay dhowr khamiinto laga fuliyey oo dadka soomaalida shaqa lagu caawinaya fiiri mararka qaarkood annaga sinyaalanaa na soo gaaraya oo ah problemkaasaa jira sinyaalka wuxuu ka imaan karaa fiiri
institutionada dowladda ama instansiyada soomaalida ku xiran oo ka imaan karaa wuxuu ka imaan karaa onderzoek wetenschappelijoo la sameeyey annaga marka sinyaalkaas markuu na soo gaaro waa inaan kala hadalnaa ciddii ay kusaysay waa in problemkaas wax laga qabto fiiriya waa in problemkaasi wax laga qabto wax ka qabashadaas annaga waxaan jecelnahay in ay bitrokon ku noqdaan dadka soomaalida ah laakiin haddii la rabo dad kale ama hay-ado kaleo expertiya furi kara waa arrinta hadda oo projectigaas oo kale oo ka mida oo sheegaayo oo hadda axmed uu sheegaayo weli waa socdaan u malayna axmed oo dhammaado kale magaalooyin badana laga fuliyo marka arrintu ma aha keliya fayfayfay ifsan waxyaabo badan ay qabataa oo ka mid ah dib u dhiska waddankii inay ka qayb qaadato ama mujtamaca soomaalida halkan joogo inay integrationkii participation wixii suurtagala ay samayso laakiin wax badanaa laga suga ifsan haa wax badanay qaban kartaa haa laakiin waxaa la rabaa fiiri eegnar war dalladda dadka iskale waa idinka oo contributionka bixiya marka baaydaraaqihiina iyo taladiina aaday muhiim u tahay waxyaabaha qaarkood fiiri waa ad hoc waa tan hadda idiin sheegaa luwardana laga soo wacay ifsan xafiiskadoo laleeyahay nin soomaaliya la gubaa waxaa laga soo wacay erkanis dorob ku taallo ii sheegay qildarnaan oo dad soomaaliya dhibaato loo geystay oo maaragtay guriga lagu jibiyey waa arrinta hadda maxamed askari uu sheegay oo kale oo ah ninka soomaaliga waxyaabaha qaarkood waa ad hoc waxyaabahaas ad hocga ahna waxay u baahan yihiin markiiba waa dab la damina wax laga qabto markaa wixii laga qaban karana waa laga qabtaa waxyaabaha qaarkoodna waa structural waa wax muddo dheer socdo oo sida ay ka mid tahay fiiqayfayga waxyaabaha qaarkoodna waa waxyaabo nood ah oo ay ka mid tahay dhibaatooyinkii hadda daadadkii dabaylihii wixii oo dhan marka mar walba yani sidii wax u dhacaan ayaad fiirinaysaa laakiin si guud haddii la yidhaa ifsan lacag structural oo joogtaa la siiya ma laha guddigeedu waa faraawiliq waa dad idinkoo kale ah inta idinka danihiina gaarka aad leediinay leeyihiin dadaalay samaynaa haddana toq waxay jecel yihiin dadkooda waxay u qabtaan marka adinkana waxaan rabnaa in la wada shaqeeyo oo guddiga iyo ifsan mar walba lala shaqeeyo taasaan jecelnaa arrinta maxamed uu yidhi arrinta gabadhii oo kale markii horta wax dhacaan waxyaabaha qaarkood xoogaa waa iska privacy qafuulak waddankan waa taqaanaan oo haddii waxna waa wax individuale waxna waa wax yani maaragtay guud oo alqameen ah marka ninkaas soomaaliga waa ka xunnahay wixii ku dhacay waana la xiriirnay annagoo ku hadlayna magaciina iyo magaca dalladda waa u tacsiyeyna dhibkii gaaray wixii tala ah oo markaa nagala gudboonaana waa siinay laakiin wax kasta in kor loo sheego muhiima ah waayo mararka qaarkood waxaa ku xadidaya bed an reeqi qayfin iyo privacy waxyaabo badanaa jira oo bibarkan kugu sameynaya weliba arrimaha qaarkood oo kale marka maxamed arrintaas waa ka warqabnaa waana runtaa expectationka wuu jiri karaa dadka wardalladii maxay ma og tahay laakiin annagana waxyaaba na xadidayaa jira marka taasna insha allah ina saas ula socotaan haddii ilaah yiraa axmedaan u malayna inuu maaragta ku diri doono waxbaad ku diri leedahay maya arrinta meediyaha waa mararka qaarkood meediyaha waa khatarteeda leedahay badanaa ayaga markay rabaan ay ku isticmaalayaan markii efsan ahaan ma garanayay waa forsikhti inaad ka ahaatid waxaa sameynaysid moogtahay laakiin mararka u baahta inaad isticmaalo hadda sida gabadhi hadda sheegaysa oo dalif ku dhibatay oo kale waa u isticmaala maadaama anagu aragnay foor deelix inay ugu jirtay waalidkaa u ballanay anaga tusi barsoona ahayn keliya anaga ma hadlayni waa hadlanay laakiin tusi waalidkaa u ballanay meediyaha inay problemkooda sheegtaan si dadkii u ogaadaan hataa commentaar waxaa keensaday ilaa intaas qof reaction ka baxshay oo last alkhamina dakhbalaaq lagu soo qoray oo London ahayd ilaa wita hawdarkii magaaladii joogada su'aal laga wareysto wixii laga sameeyay oo problemka ka dhacay la xalay laakiin waa khafuulq way meediyaha badana anaga Soomaali hadaan nahay dhibkeena iska badan waxayna iska badan markii mid okiil fursad sameeyeen hadaa xasuusto inta koor markii oo ayaan hees joogi jirtay meediyaha inta la wareystay كلمة سوت ميني هو قراعي سموت دد أوكيل فرصة إني أهاتو مركا واحد شيء يصير يقف في هاللاي مركا قدام بس تريك أفسد وحقه أصلا إنه قف مركز لايف فريسنا يحليك ما نسمينا يعني وحي شو ذي قاعدنا يعني شو كاس هذا إذا تكون سمينا عندنا أبو دملي مركبا دد سوق خفاف الريكلو وحجرت أو خطر هيد أو حجر بري دد كصومالي ده حتى ريكال سيرين يو توريزم يحبنا عسي مادن يعني بريغاس بس تركي واحد مالينا ما هاد وجوان مالينا ما هذا كهاد لك كرو يعني إفسن أيجو متقوي بدولين ددالايو هذا الرئيس واحد أرنت على جلالة إن وحكت ترى مكتة بريجي معنا مكتة
بريء أنتي أيضا oo la guddiga ifsal lagu qabsaday xataa iyagoo baduulinkoodu yahay inay maaragtay mogta والله أتين ورني والله بس أبني أدو مع سنتين أرنت أو ميديا ورنت خطرت لا وأنا في عنت رنتي مرة كهذا السيد إن وضع كان شرعي استقامة وحياة أديك سنة السيد إن رنتي تحدي بدك سنة ورنتي أنا حقنا يا بريء بسوق عم كتير وبريء توريزم كشمال الرجال marka runtii anada waxaan ma aqoon masaadad waxa lagu sayaa waddanka dhan ama ruqiya ka soo fadhida weeyeen dadka Soomaalidana runtii waa runo waxa markaad meegeeda ka maqashid iyo eeramaha Facebook iyo aad waxa dhigan wax weyn ka dhigan mooti laakiin markaad dhexdeeda ku jirtid waxa dhacaya aad og tahay waxna kama hadli kartid iyo xataa saad uga hadlaysid iyo taxadirnimadeeda iyo waxa leedahay anaga bariga wax naga soo gaaray runtii damage aad u weyn marka laakiin markii dambe waxaan sameeyay waxa yimid yeeshada artiyalka yimid waxa yimid LOS ka yimid wax dhamay ما أنا أقول واحد كان ينترسين السيني لكن ما كنت ما حشكت على أي حد إنا نطش إنه الله يرو أنا قلت أنا ديم قرنه مركب في عن تحت الليل كنت إنه قاعدان إنك سو مهدان ده أنا بسول كوتشري لكن هو فاهم كرا هذا الليل كان بداي حياة بدل مركب كوتشر تباش الوديد أو كل واحد بستوري يوم مركب الليل كان بناء كتاي هذا الوليد بنا أكتيف أورغانيزاسيون هذا أكتيف وليدا حياة بدل مركب سويت هذا لوكا كقبل كرا هذا أنا مقلع أنت هذا أنت اللي شوقي نرجع حياة بدل بستوري حاجة فترة مو في غيره لكن markaad u fiirsatid waxyaabo badan oo leedinka ay qaban karaan baa jira oo badan ay ka yara hordaan marka haddaan wada shaqeyno oo dastuurka la shaqeyno aniga waxaan qabaa in wax badan wada gaari karno oo in nafta isku fiirfiirin dastuurkan waa run iska dalniman iska runtii oo faraawil qaweeya hawleen wadaanin iyaga runtii hadda madaxii haya laakiin waxa fiican inaga leedinkeena hoosta inaan u tagno inaan isku nimaadno inaan kaniska isdaafsano waxyaabo oo ka dhacayna dadka loo sheegno بدرنا مهدان وحياة أفسك أمر حكمي ده ما تتكلم عن ساكر وكذا ويجرتها من هذا كده عضو إنه شوي ما عضو إنه بستور سويه فرانت بوردي وكهلنا واحد يستمر يعني في الكيسنا وكذا أنت أفسك نتي ولا أمر وين صدر السنة بهذا كله ده هاي كم تشت ود ما كله هو اللي يسكت ده ولكن لو كروح بنت نتي بحياة وناكسن إنه هلو إن رنتي الله أمانه ما أنا هرنتي إن بستور الدفاع يكون دارو كمشرو لكن ما في عمل الله أفسك ورنتي وواحد على هذي كريم عقبان تسبدل بدل لو سميه لكن هدينا إنه أسلينا إنه الله سمينين بستور ما سمين كريس. أنا وحين جرين واحد الدفاع مركب ما يعلم بس تأمل لنا موقت وأنا رون واحد قال لنا وحنا سواق بالنوى ما دري مكرا ما يوحي لصورة فون بان قال لكرنا موقت خوف كستنا كله بسيبه واركا موقت أنا أرنت سو أركواي ويرك لك هايتك أنا ماشي أنا جالي هذا وحلا أنا بلوغ أركيس وقت مركا سؤال بروجكتية كله وحكلا إن لا أساس سومين مجيران مركا تاس وقتنا هذا discussion كوسون نقولنا أيوه إذا أنا وأريم مهم أوبا إن لقى فكيره أو مركز تين لقى ضوضاء مثلا أي خن يا إسكال إفسن محيس قبان كرتا محل لقى أنا وقت وقت بيفان إفسن موقت تاس مهم موقت مركا سي خلطك وصنو إيمان أفسن كلي إن الله أركن بستوركي إيو بروجكتي سعودي وحباس وحباه اللي بقول يستوي مركب بستور فراي بلغ إنه جو إذا لف كذا بقول أهموكت إيو بروجكت إنه سعودي وهذا زهرة إنه وده ما شاء الله وصلنا ده بدل نودي إذا هو قول موكته لكن واحد لقد وجي واحد معناها ستاب وحباه كلام الله سمين كرا أرتو حباه كلام ولا سو سمي أنت برين جيم كاكوجرتي أو لقى هذلي أرين كلا جرت بروجكت صورنا معطي أو لقى هذلي فرأندر فان بين أوت واحد جندر خلاك هاد كوساب سنيد واحد جرت ليتس تشينج بروجكتي وين يريارو سعودية وكوساب سن بروجكتي واحد جرت كيندر بوست سيقل كلا قدر البضية وكو إمباورمنت إلمها كوساب سنيد ويجرا وحياة بدن ولا سمين كرا واحد كتير هوري واحد جري واحد لو capacity building موقت أوردا إن لا كوبعي ولا توبرا تاس معناها واحد وحيو بانتا يسا أنا وجهنا موقت وواحد أباه إن لقى فكره مركب واحد مهمة ما دام هذا اللي جوجا مركب الاسكوي ما دشر سنة الله بدنا سيد عادينا أو حوا أفضل اختي وحلا سيا ليدنك أفضل اختي وحيسينا يعني بستورك أورجانيزيشن كا إلا بارو سيد واحد اللي وكيني لها إذا مركب واحد العيمة اللي أريما عافمات كتاس على الراديو مركب واحد كستنا مركب إحنا هنا نغالي إنه الراديو نغالي منه وعلى رادين كلا وزارة دي إنك صوتاس كصياراتي وحنا واحد لوكال كلا جرى رادين كرا مركب هذا challenge نسويه واحد واي ورادي هرتا degmooyinka ay joogaan iyo qameentiyada ay lacagtii oo dhan taala dad macnaha waxaan nahay mana qol dahab ka buuxi dhex jiifo oo laakiin aan arkayn runtii markay fiirisid
arrinta ku saabsan caafimaadka tan ku saabsan onderwijs tan ku saabsan waxyaabo badan ay jira oo hadda localka lagu soo wareejiyey WMO wax oo dhan wax la young oranka laakiin waxay u baahan tahay sidee loo wajahay marka taas lafteeda waa wax u baahan marka dastuur ahaan kaliya maahan efsan aan inaan ka fikirno in la sameeyo tusaale ahaan mataqaanaa kulan ah in la sameeyo strategic plan oo laga fikiro waxyaabaha the command yaaran la sameeyo biqorootin waa su-aasha uu na weydiiyey walaal uu dhahay ma jiraa wax qorshe oo biqorootin ah taasay ku lug leedahay sababtoo ah efsan ma jirto lacag beel u taal mana jirto lacag nala siiyo oon biqorootin ku samayno lacagta ugu badan oo aan zaykar u hubno waa wax leydinka waxa idinka dhiibtiin 120 la dhiibo waa lacagta aan isdhihi karna 100% waxaan ku samayn karnaa marka taas inaan isweydiino waa 120 oo wali ururada dhan wada dhiibeen maxaa lagu samayn karaa ogtahay tan kaloo project fiqeeyada waa wax socda waay project bilowday oo dhamaad leh oo la cayimay waay tan waa training tan waa kan wax ka badan ma ku samayn kartid marmar way iska jirtaa waxyaabo creativity la isticmaalo oo su'aalaan meesha training laga sameeynaa in la dhaho bal lacagtan aan u isticmaalno capacity building oo kale ama ururada si loo bari lahaa sida book holding taas waxay ku xiran tahay creativity dastuurka iyo mataqaana ururadiiba marka waxaan leenahay su'aalihii inaan soo gabagabayno kale wadii wax lagu daray moogi ani kali waxaan ku darsan lahaa maanta maalin dheer waa ina sugayso doorashada sugaysa haddaan su'aalaha isku badinin waqtigan ugu dheeraanayo qof kastana waxa rabaa hawadu waa fiican tahay inuu hooyadu rabaa marka waa muhiimadda waa in la fahmaa horta waxay efsan tahay inaan isla fahmno maya haddii kale cali iyo waxa baay maxamed saciid waa diblomatic maanta dhan qofku waa laat out bartanay sameynayaan inaan isla fahmno efsan waxay tahay expectationka in la ogaado marka dastuuraa qoran xeer hoosaadaa qoran website-ka ku qoran fiiri amsterdam sanadkii hore waxaa lagu baxshay 2 sano ka hor waxa la siiyay 500,000 oo la siiyay Soomaalida project oo yongran ah hal gabar part time laga siiyay aabi leedankii fan efsan amsterdam joogay aabi maxay qabteen su'aal isweydiin badan waaye fiiri bukul og faraaq daraay ma ogtahay 5 ton ay ku baxday faraaw part time ah shaqo laga siiyay khaleeq laga siiyay nee mar dad staag fan leedanka joogo localka joogo inay active noqdaan markaas kobol ku sameeyaan fanaad efsan ma dhihi kartid khaakhimiinta amsterdam aan kaarta ma sameyn kartid soo lang leedanka efsan ay ku xirneen ay aan kaartan ku sameyn karin dastuurka efsan ay la sameyn kala shaqeyn karin dan waxa waay is eedan waay haddii leedanka istarki yihiin efsan dastuurka istarku noqonaya haddii leedanka isbag yihiin efsan dastuurka isbagu noqonaya marka leedanka intay ka soo dhaxbaxayaan dastuurka efsan inta ku soo dhaxbaxaya dad isdaawdir inay noqoto waay hadda fordiilka efsan haysata aan haysan jirin waxay ahaan jirtay marka hore waa la sijiidi jiray waa khaif turuq daraaya last year dastuurka la iska jiray waxba lama qaban jirin dooda lagu jiri jiray hadda ana sameeyay maxamed saciid waxa la sameeyay process la sameeyay oo professionalism lagu sameeyay oo structure la sameeyay oo shaqeynay nidaam shaqeynay la sameeyay Soomaali nidaamkii la ku shaqeyn karta hadii kale ana amarkayga ah soconays taas waa la soo gudbay hadda nidaamka lagu shaqeynaya nidaamka aan sameeysanay yaa la khaldi processkaas lagu socdo أنا هذه حسابات هاي لكن إقدونيكس بيني مثل حساب ما قرني وح ما قرني لكن نظام شقينا بروسس اللي سميه اللي تجي بروسس كاس الوصول عناه كلي